Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan. Akhyaarta qiimaha badan meel kastoo aad joogtaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaynu soo qaadanaynaa maanta waraaqtii ugu hadalhaynta badnayd ee qoray wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, ahaana tafatirihii BBC-da, ahaana shakhsi ugu taariikhda dheer ee soo maray BBC-da. Waxa uu waraaqdan ugu ciwaan uga dhigay ama maqaalkan uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Somaliland maxay ku faraysaa midnimada. Waxa uu isbarbardhig ku sameeyay matalaadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland. Labada dhinac markii ugu horeysay ay soo fariistaan waxay ahayd bishii January 2012 waxaanay ku kulmeen Joffrey House oo ah meel aan ka fogeyn magaalada London. Shalay ka hor kulankii ugu dambeeyay waxa uu ahaa 2014 oo ay labada madaxweyne ku kulmeen wadanka Djibouti. Labada shir mid anigu suxufi ayaan ahaa, weerargooyinka ayaan gooni ula kulmayay si aan u wareysto. Mid kalena wafdiga madaxweynaha ayaan ka mid ahaa oo miiska ayaan fadhiyay. Intii u dhaxaysay si dhow ayaanu la socday. Markii aan suxufinimo ku shaqeynayay labada dhinac ayaan xogureysanayay. Marka kalena anigoo matalaya Soomaaliya ayaan wada hadalka uga qayb galay Istanbul, Ankara oo ahayd kulan aqoon-yahano. Qaar kalena qabanqaabada ayaan waxaan ku lahaa. Kulanka Djibouti waxa uu ahaa is arag aan la shaacin. Si hoose ayaan xogta u helay. Ku dhawaad dhammaantood waxa ii muuqatay in aan labada dhinac ay isku diyaar garow xag macluumaad iyo waliba marka ay noqoto inaan waxba lala harin loo bareero dhinaca kale. Waxaan qabaa dareenka ah inay isa soo hor fariistaan koox taqaana waxay ka hadlayso sida u dhageysiyo iyo koox doonaysa midnimo inay helaan inay u caqli celiyaan walaalahooda. Istaraatiijiyadda Somaliland waa inay Soomaaliya noqoto laba dal oo koonfur iyo waqooyi ah. Doodo halka kama digto, waxbana lagama bedelo, waxna kuma soo biiraan. Somaliland waxay ku bixisay dhiig qarash fara badan iyo propaganda, waana dacaayad aan kala goyn lahayn oo dadweynaha la gaarsiiyay laguna celceliyay. Waxa la hubiyay in shakhsi kasta ay fariintu gaarto mid waliba sidoo qabay ama uu ka horeeyay, mid hadda lagu qanciyo iyo mid lagu celceliyo ugu yaraan ilaa uu ka garaabo. Waxa saaxiib ay ku yeelatay Somaliland saxaafadda caalamiga, aqoon-yahano iyo diblomaasiyiin shisheeye. Xafiisyo u samaysan suuqeynta siyaasadda ayaa la karaystay si dood aan loo kala iloobin marnaba aan dadka madaxiisa uga bixin. Waxa loo sameeyay astaamo lagu xusuusto. Midda kaliya hadda aan soo wataalada ay diyaarada miiga ah saaran tahay ee magaalada Hargeysa. Qof og inaad og tahay sheekadeeda murugada leh ee aanu ka caajisayn mar laba iyo in ka badan in lagu soo celiyo. Somaliland shakhsiyaad bay leedahay loo bixiyay mujaahidiin, waxaanay la dagaalameen oo ay ka adkaadeen shakhsiyaad astaan looga dhigay shar loona bixiyay faqash. Qof kasta waxa uu ka qalin jebiyay iskuulka furan ee ku saabsan wixii la soo maray, waxaana lagu daray iyo wax hadda loo haysto aan la heleen hadii ay Soomaaliya laga sii tirsanaado. Aqoontaas barashadeeda ma jirto meel ay ka caagan. Waxa lagu bartaa xafladaha, xafiisyada, goobaha ganacsiga, guryaha, saxaafadda, bulshada, waxaana lagu dhageystaa raadiyoyada iyo TV-yada. Iyadoo ay taas jirto ayaa marka wada hadal la tagayo waxa la soo xulaa dadka ugu xog ogaalsan uguna mitidsan. Qaarkood waxa ay waxyeelo toos ka soo gaadhay dhibaatadii dawladda Siyaad Barre, taas oo aan looga shakiin inay taasoo looga baqan qadiyada Somaliland. Waxa intaas weheliya aqoon-yahan u diyaariya dooda mararka qaarna sooba raaca oo ka tirsan ergada. Madasha ayay tagaan iyagoo ku hubaysan taariikh si taxadir leh loo soo xulay, xadgudubyo iyo dhacdooyin fool xun oo dhab ah iyo qaar fasiraad aan sax ahayn laga bixiyay. Iyo wax kastoo sax amaba khalad leh way Somaliland ku gar heli karto kuna cadeyn karto in xalka kaliya uu yahay in labada la noqdo. Intaas waxa dheer in shacab iyo dawladba la xisaabtamo wafdiga marka ay dalka dib ugu soo noqdaan. Federaalka Soomaaliya waxay sabtaa madax ay ku jiraan qaar ka soo booday amaba lagu soo dhex tuuray wafdi baxaya xilka ay ku magacaaban yihiin awgiis lagu soo buuxiyay. Wax qaybsiga Soomaaliya ku qaybsato ee 4.5 way ka soo jeedaan darteed mararka qaar waxay tagaan ergo mid kasta oo ka mid ah ay tahay markii ugu horeysay wada hadalka uu ka qayb galo. Xubnahaas waxa laga yaabaa in qaarkood aanay weligood tegin akhriin iskuna hawlin si qoto dheerna u fahmin dooda Somaliland waxay ku salaysan tahay inta aqoon taariikhda dhammaystiran in aanay la socon dhacdooyinka foosho xun ee hore u dhacay. Marka laga reebo inay maqleen waqooyi ayaa la duqeeyay, iskabada mida ka sii culus oo ah waxa la soo hor dhigi karo qanci kara reer Somaliland inay dantooda ku jirto midnimada. Istaraatiijiyadda marar badan la isku in laga iibiyo midnimada waa niyad wanaag iyo in la yiraahdo walaalayaal midnimada ayaa ka wanaagsan
tafaraaruqa ee midnimada aqbala taariikhda sharciga iyo dood Soomaalida inta badan dad la geli karo Somaliland kuma yara koonfur waxa ugu badan Soomaalida ka soo jeeda Somaliland ee madax iyo shacab leh ee Muqdisho ku nool kana shaqaysta gobolada oo dhan qaarkood sabab kasta ha ahaatee midnimada ma iibiyeen qaar kalena way ku jiraan khabiirnimo isku darsaday khabiirnimo iyo haybad fursad looma siiyo ka qayb ka ahaadaan wada hadalka ama xataa daaha gadaashiisa tala ka bixiya soo jeedin Soomaaliya waa dal aad u weyn oo ka weyn Ingiriiska iyo Talyaaniga oo la isku daray sidaa darteed qof kasto arrimaha gobolkiisa ama deegaankiisa waa uu kaga xogaalsan yahay inta kale oo dhan labada gobol ee midoobay markii uu midkood gooni isu tago inta uu dhalatay sida taageersan iyo inta diidaniba arrintu waa ay uga xogaalsan yihiin Soomaalida inteeda kale waxaan qabaa in koonfurta laga furo doodadweyne oo qoto dheer oo ujeedadu tahay inay sahasho isfahan doodaasi waa inay jawaab u heshaa weydiinta ah ciwaanka qormadan ee Somaliland waxay ku falaysaa midnimo madaxda Somaliland iyo shacabka taageersan waa maxay danta ugu jirtaa midnimada ee la tusi karo la taabsiin karo aynu ku qanci karnaa su'aasha jawaabteedu inay dusha ka bartaan ugu yaraan inta siyaasadda ku jirta iyo inta danaynaysa inay gasho iyagoo intaas yaqaana kadib ay marka la soo xulo u diyaar garoobi karaan oo ay dejin karaan istiraatiijiyadda wada hadalka iyo taktikada ay tahay in la adeegsado Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo walaalkiin Xasan Mawlid Xusni halka nagala socotaan waa kanaalka xog iftiinshe haddaba hadda kanaalka ku cusub tahay subscribe si aad u heshid fiidiyowyada xiiso leh aad ayaa u mahadsantihiin